waxaa farxad ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii May 2022 5 sano mise 6 sano ku dhawaad kadib in aan dalkaygii la igu soo dhaweeyo oo ra'iisul wasaarihi xukuumadda mudane Maxamed Roble golihiisii wasiirada golihii labada gole baarlamaanka iyo guud ahaan hay'adihii dawladda ay si fiican ugu soo dhaweeyeen mudane ra'iisul wasaare waan kaaga mahad celinayaa sida aad runtii igu maamuseen soo dhaweynta aad samayseen iyo shaqadii aad soo qabateen waxaan ognahay oo runtii aan la ilaawi karin idinkana mahad celinayaa go'aanka xaq darrada ahaa ee laygu xukumay ee layga saaray wadanka ee argagixisada laygu xukumay inaad ka daba tagtaan oo meesha ka saartaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa idinka mahad celinayaa sidoo kale waxaan jeclahay iyagana inaan u mahad celiyo baarlamaankii labadii gole shacbiga Soomaaliyeed oo ayaguna si buuxda u qaadacay go'aanka xaq darrada iyo karaama darrada ee ka soo baxay xukuumadda xilligaa jirtay ee go'aamisay inaan anigu argagixisahay ururkayguna argagixisayahay waa idin mahad celinayaa dhammaantiin mudane ra'iisul wasaare inaad igu soo dhaweysaan oo maanta aad ugu qaabishaan meeshii uu ka dhacay jawrkii daaru nadwa meeshii macna waxa la yiraahdaa waan filayaa meeshii nabiga loogu tashaday yani meel kasto xaq darro lagu fuliyahay way haboon tahay in xaq lagu daahiriyo meeshii shalay laygu xukumay inaan argagixisahay go'aankii foosh xuma iyo xaq darradii laygaga sameeyay aniga qadiyada Soomaaliyeedba inaad maanta ugu soo dhaweysaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan iyo qadiyadan anigu iyo idinkuba aynu wada lahayn u dagaalameynayna runtii waxay ahayd arin oo farxad iyo guul iyo sharaf oo ay ka wada hambalyeysay ahayd waxaan jeclahay inaan marka dhowr kelimo oo yar yar inaad intaarto hadii Ilaahay yiraahdo koow wixii dhacay iyo cidii geysatay shacbiga Soomaaliyeed wuxuu xusuusan yahay guud ahaan taariikhdan qoraysa qof walba iyo dhibaatada uu geystay ummadan iyo tii qadiyada wada gaadhayba dadkii taa inoo geystay waxay la tahay inay tahay arrin waajiba dhammaanteen inaan dib loo wada xisaabtano shacbiga Soomaaliyeed dib loo xisaabtano nasiib darro iyadoo aan ognahay dhowrkii sano ugu dambeysay inaynu ku sugnayn xaalad jahwareer ah mid siyaasadeed oo bantilaan dawladeed iyo qiyaas aan la garan karin meesha aan ku dambeyn doono cidii dhibaatada ay noo geysatay mar kale inay leedahay han ah haddaad dhiman weydeen mar kale na soo doorta na soo celiya si aan idin wada baabiino waxa isweydiin leh dadka hankoodu noocaya 5 sano halaagaan soo marnay 5 sano huba talaabaan soo marnay waxaan ku noolay nolol barsakha waxaan ku noolay xilli laga qoosay dawladnimada ummadda Soomaaliyeed xilli uu burburay systemkii dawliga ahaa xilli wax isku xidhan uusan jirin hay'adihii dawladdu kala xiriir furteen dawlad goboleedyada dagaal la wada geliyay waxaan burbur qaran baa inagu dhacay ummadda waxa sameeynaysa ee maanta mar kale doonaysa inay dib isu soo diyaariso waxa fiican lahayd inay intay hortimaado ummadda hor yimaadaan ay fasiraan wixii dhacay muxuu ahaa maxaa idinku kalifay miyay xanuunsanayeen oo caafimaad baa u kordhay macruur bay ahaayeen oo ayni baa u kordhay waa inay ka cudur daartaan wixii dhacay waa inay horta ummadda ay uga cudur daartaan ama ay qaataan mas'uuliyadeedii halkii loo baahnaa inay ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii gaadhay uga tacsiyayaan
raaligelin weydiistaan maanta mar kaleeta inay yidhaahdaan dib ha naloo soo doorto runtii waa arrin aad iyo aad nasiib darro ah. waxaanse rajaynaynaa maalinta axadda ee soo socota oo ku aadan 15 May oo ah maalinkii halgamayaashii SWL soo saamahay oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed u suntan sharaf iyo karaamo iyo xorriyad ugu suntan. maalintaas aan rajaynayno baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo in ayagana lagu ciqaabo waxay mudnaayeen ummadda Soomaaliyeedna ay u dooraan dadkii samata bixin lahaa inaguma leh xaq inaguma leh inay maanta xil ina weydiistaan wax xaq loogu leeyahay ayaga in dhibaatadii ay geysteen lagu la xisaabtamo dabcan waana lagu la xisaabtamaya. waxaan jecelahay inaan hadalladeeda inta badan dib u dhigto haddii ilaahay yiraahdo oon mar si fiican oo kulanku aynu mar kale isugu soo noqono ra'iisul wasaare yaan rajaynaya mar kale waa idin mahad celinaya dhammaan idinka iyo shacbiga Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo labadii soo gala waa idin mahad celinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin.